guddida dibudhiska madaarka Burco ayaa maanta kala wareegay xildhibaan Cali Mareexaan lacag qadarkeedu dhan yahay $269,720 lacagtaasi oo loogu talagalay dibudhiska madaarka Burco isla markaana ay ku soo tabaruceen ganacsato reer Jabuuti ah oo tiradoodu dhan tahay 19 xubnood. xildhibaan Cali Mareexaan oo ka hadlayay munaasabadda wareejinta lacagtaasi qaybta ka ah dibudhiska madaarka Burco ayaa sheegay inay u mahadnaqayaan cid kasta oo gacan ku leh lacagtani. airport leeyahay oo ay soo bixiyeen ganacsato reer Jabuuti ah oo ay tiradoodu tahay 19 qof oo lacagtaana ay totalkeedu noqonayo $260,927 oo Mareykan ah. lacagtaas la sheegay waxa soo bixiyay ganacsato reer Jabuuti ah oo dabcan reer Somaliland ganacsi ku leh qaarkood. gudoomiyaha guddida dibudhiska madaarka Burco Sheekh Cali Mawlid iyo xubno iyaguna kamid ah guddidaasi ayaa iyaguna mahadnaq ka soo jeediyay madashani iyaguna cadeeyay in lacagtani ay soo gaadhay guddida dibudhiska madaarka Burco isla markaana ay gali doonaan meel ku haboon oo loogu talagalay. lacagtaas oo maaragtay maxay tahay qof walba intii uu bixiyay iyo magacyadii iyo kulli iyo qoraal ayaa naloo keenay lacagtiina guud ahaan maaragtay waxaanu ku shubnaa account-ka ayay ku dhacday. aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa shacabka reer Jabuuti guud ahaan gaar ahaana ashqaastii bixisay. mahadnaqayga gaarsiinaya dadka ku nool ganacsatada ee reer Jabuuti iyo dawladda Jabuuti oo runtii deeq la garab taagan dawladda Soomaaliland mar walba. xagga Yurub waxaad moodaa Ingiriisku inuu kaalinta koowaad ku hogaaminayo wadamo kale laayim kama hayno. waxaan filaynaa waqtigan xagaaga ah in dadku ka soo degaan halkii Hargeysa halkii Berbera ka soo degi jireen ee jidka dheer soo mari jireen hawsha aanu ka qabanaa arki doontaan saxaafadiinu mataqaanay halkan ay ka soo degaan maantaana ugu bishaareeyna saan ku talagalay. ganacsatada reer Jabuuti iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay cid aan ka qayb qaadan wali hawsha madaarku way socotaa dibudhisku wuu socdaa. waxaan leenahay anaad ugu soo jeedinaa inay ka qayb qaataan cidda kale wali. deeqdani lacagta ee soo gaadhay guddida madaarka Burco ayaa iyadu noqonaysa mid wax weyn ka tarta dibudhiska madaarka Burco oo xilligani ka socda gudaha madaarka Burco iyadoona qurba joogta Somaliland iyo kuwa gobolka Togdheerba ay ka soo deegi karaan xagaagani geegida diyaaradaha ee madaarka Burco.